الرحمن الرحيم waxaan ka tacsiyeenayaa dadkii xalay ku geeriyooday weerarkii naxariis darrada ahaa ee kooxda al-shabaab ay ka geysteen goobo ay dadka shacabka ah isugu yimaadaan dadkaasi waxay ahaayeen dad shuhada ah oo bil soon la dilay waliba xilli ay faraxsanaayeen waa arrin laga murugoodo in bil ramadaan waliba 10kii dambe dad Soomaaliyeed oo waxba galabsan in la laayo waliba lagu faano iyadoo oo shaar diimeed la huwayay cadawgan waa mid noo diidan inaan faraxno inaan nabadgelyo helno inaan shucuubta dunida la jaan qaadno in qoyska Soomaaliyeed ay nabad ku soomaan nabadna ku afuraan goobtii ay xalay weerareen waa meel ay inta badan isugu yimaadaan dhalinyarada dugsiyada sare iyo jaamacadaha ah ay da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 25 aan isweydiino maxaa loo laayay dhalinyaradaas maxay galabsadeen ma ciidan baa ma dawlad baa waa may waxa loo laayay maxaad u farxsan tihiin maxay rajo dawladnimo idin gashay maxaa fikir xag jira aad u qaadan weeyeen waxaa jira ciidamo maalin iyo habeen daqiiqada u taagan sidii amniga shacabka u sugi lahaayeen 20kii maalmood ee soonka waxaa laga hortagay falal noocan oo kala ah waxayna ku timid wada shaqayn shacabka iyo hay'adaha ammaanka wada shaqayntaas waa in la xoojiyaa dabargo'a al-shabaab wuxuu ku xiran yahay isku soo dhawaanshaha hay'adaha amniga iyo shacabka. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.